madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa markii uu gaaray magaalada Wadaamago ee gobolka Saraar waxa uu kala kulmay soo dhaweyn aad u diiran iyadoo dadweynaha deegaanka Wadaamago ay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku qaabileen niyad sami sacab iyo mushxarad iyo shucuur gaar oo ku wajahan imaatinka madaxweynaha ee deegaankan soo dhaweyntan loogu sameeyay madaxweynaha Soomaaliland Wadaamago ayaa waxa ka qayb ahaa ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka aynu u leenahay xildhibaan xariir oo ka tirsan aqalka baarlamaanka Soomaaliland isla markaana deegaankaasi Wadaamago laga soo doorto iyo sidoo kale cuqaal deegaankaasi ka soo jeeda ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay marka hore waxaanu halkan kugu haynaa shahaado sharaf qiimo leh oo ka turjumaysa waxqabadka adiga iyo xisbigaaguba aad qabateen meel marka ah ka turjumaysa shahaado sharaftaasi waanu guddoonsiinaynaa madaxweyne meeshan waa Wadaamago waa taad ku dhalatay waa bardii noogu dhawaaq degmada waxaan raacinayaa madaxweyne waa ku ducaynaynaa ilaahayna waa iga aqbalaya idinkuna aamiinina adiga iyo dawladdaadu tii jirta ee loo aado ilaahay idinka dhigo waxaan ku gunaanadayaa waxalaaliyo meeshii walba waa u gelaynaa god kasta waa u gelaynaa madaxweyne siduu soo bixi lahaa wasalaam madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa soo gunaanaday xafladaasi uu kula kulmay dadka deegaankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo dadweynaha deegaankaasi Wadaamago la hadlayay ayaa waxa uu marka hore u sharaxay safarkiisa isagoo geesta kalena u ballan qaaday inay ka fishaan wax wacan oo guud ahaanba lagu horumarinayo deegaankan وأهل أهل أبوكسر دروا أحسن ينيم وأحسن أبوكسر كذلك تساسية. سفر جوال كتير هذا النوع ضخم هم من هنا نروحونه الواحد يروح بحرم من هنا نوجد واحد ضخم يجت يكسر هاي وحياه خبرنا وكخبرنا أنت بدرس إنه وحياه الناس يشيلون من فوق قادرنا ودرسنا وحياه وكخبرنا فالكوارث اللي جسدي سبت عمل يسوي اللي جسدي وقادرنا وحياه الناس يشيلون إن شاء الله تعالى ونقص ذاتنا ونكتب ذاتنا وهو رسول الله يفشى كل الرحمن غفر المسار ولا واحد غفر المسار الله يخلقه وشكر جزيلا هذه أربع مسنتين سلوك في عن الاستدلال والسبيعة وبيتي للكافي وشكر جزيلا الله يخلقه وشكر جزيلا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa intii uu ku sugnaa magaaladaasi Wadaamago waxay dadka deegaanka guddoonsiiyeen shahaado sharaf ay ku maamuseen madaxweynaha taasoo ay ujeedadeeda ku sifeeyeen waxqabadka ballaaran ee madaxweyne Silaanyo ka qabtay dalka waa Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco